qorsheynayso in aad u safarto dalka Faransiiska mustaqbalka dhow. Waxaan kaaga digayaa oo aan halkan kugu soo gudbinayaa in aad wax badan ka ogaato wadooyinka dalkan ee ugu halista badan. Ma ahan wadooyinka dalkan oo idil, balse waxaa jirta wado ku taala dalkan oo qarsoonta oo ka hoos marta biyaha 2 jeer maalin kasta. Ka hor intaanan muuqaalkeena u gudagalin, aan eegno sawiradan. Sawirkan waxaad u jeedaa wadadii oo caadi ah oo ay gawaaridu mari karaan. Sawirkan waxaad u jeedaa calaamado lagu xardhay hareeraha wadada, kuwaasi oo muujinaya in wadadu halis tahay iyo in kale. balse sawirkan waa uu ka duwan yahay sawiradii aad horay u soo aragtay. Waa wadadii oo gabi ahaanba xirantay. Mararka qaar waxaa la sheegaa in biyaha uu ka saramaro 13 feet. Waa wada halis badan. Ka hor intaynan u gudagalin muuqaalka, waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareyso kanalka YouTube-ka. Sidoo kale waxaan ka codsanayaa haddii aad igala socoto bartayda Facebook-ga in aad like saarto page-kayga. Mahadsanid. waxaa jirta hal wado oo isku xirta khaliijka Borneef iyo jasiiradda Nori Mortier, waxaana loo yaqaanaa Passage de Gauss. waa wado muhiim u ah isu socodka bulshada, balse halis badan. waxa ayna maalin kasta ka hoos martaa biyaha 2 jeer marka uu hirka badda sare u kaco. wadadan oo cabirkeeda gaaraysa 4 kiiloomitir waxa ay ka hoos martaa biyaha 13 feet. dadku waxay kaliya isticmaali karaan wadadan 2 jeer maalintii, waliba saacado kooban. waxaa jirta calaamado lagu xardhay hareeraha wadada, kuwa oo aad ku ogaan karto in wadadu ammaan tahay iyo in kale. mararka qaar waxaa dhacda in dadka ku safra wadadan ay ku go'doomaan biyaha, balse nasiib wanaag waxaa jira buundooyin biyaha ka sareeya, kuwa oo ay dadku u cararaan si ay uga badbaadaan biyaha. haddaba daawade, adigu wadadan ma isticmaali lahayd? qaybta hoose ee commentiga inoogu soo qor fikirkaaga. mahadsanid.